ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك. example-ka koowaad waxaan kaga shaqaynaynaa transaction-ka George oo aynu doonayno in aynu ku diyaarino journal entry, ledger account, trial balance, income statement iyo balance sheet. haddaba waxaynu ku bilaabi doonaa sida transaction-ka dhacay loo geliyo journal. example-ku wuxuu ku odhanayaa George wuxuu bilaabay business April 2009. transaction-kan soo socda wuxuu ka mid yahay shaqadii uu qabtay labadiisii week ee ugu horeeyay. example-ka soo socda wuxuu ku odhanayaa George wuxuu bilaabay business 1 April 2009. transaction-ka soo socda wuxuu ka mid yahay shaqadii uu qabtay labadii week ee ugu horeeyay. 1 April 2009 wuxuu investment gareeyay businesskiisii $50,000 isaga oo ku investment gareeyay. haddaba si aynu journal garayno, waa maxay journal? journalku waa hab lagu qoro oo bookkeeper-ku qoro si lagu update gareeyo ledger-ka. haddaba si aynu debit iyo credit ugu balance garayno, 1 bishii April 2009 George wuxuu company-giisa amba business-kiisa ku investment gareeyay $50,000. markaa waxaynu oranaynaa waxaa kordhay cashkii banka inoo yaalay oo asset-keenii ka mid ahaa $50,000. sidoo kale isaguna waxaa kordhay capital-keenii inoo yaalay oo ay ku kordheen $50,000 isaguna. markaa asset marka laga hadlayo wuxuu ka kordhaa debitka. marka capital laga hadlayana capitalku wuxuu ka kordhaa credit. waa tahay haynu nimaadno transaction-ka labaad. labadii bishii afraad 2009 wuxuu soo iibsaday alaab qiimaheedu yahay $5,000 oo uu ku soo qaatay ama ahaan deyn ahaan. bal aynu eegno siday journaalka ugu qormayso. waxaa inoo kordhay purchase oo expenses-ka ka mid ah oo $5,000 ah. sidoo kale dhanka kalena waxaa inooga kordhay payable oo ka mid ah liability-ga, isaguna sidoo kale waa $5,000.
expenses-ku wuxuu ka kordhaa debitka. sidoo kale liability-gu wuxuu ka kordhaa creditka. transactionka saddexdii bishii afraad 2009 wuxuu iibiyey qayb ka mida alaabtii uu deynta kusoo qaatay oo qiimaheegu yahay $6,000 isaga oo lacag kaash ah ku iibiyey. bal aynu eegno sida ay joornaalka ku noqonayso. waxaa kordhay cash at bank oo sidaynu hore usoo sheegnay ka mid ah asset. wuxuu la mid yahay $6,000. dhanka kalena waxaa ka kordhay sales oo income-ka ka mid ah, oo isaguna sidoo kale $6,000 ah. kaashku wuxuu ka kordhaa debitka sidaynu hore usoo sheegnay. income-kuna wuxuu ka kordhaa creditka. transactionka afraad haddii aynu u nimaadno afartii bishii afraad 2009 wuxuu qoray jeeg siduu u bixiyo alaabtii uu ku soo qaatay deynta markii hore. bal aynu eegno siduu joornaalku noqonayo. waxaa yaraata payable oo ka mid ah liability-ga. lacagtuna waa $5,000. dhanka kale isaguna waxaa yaraaday cash at bank oo asset-ga ka mid ah, isaguna waa $5,000. liability-gu waxay ka yaraataa debitka. sidoo kale asset-gu wuxuu ka yaraadaa creditka. transactionka shanaad shantii bishii afraad 2009 wuxuu bixiyey kiradii lagu lahaa April oo dhan $450 isagoo ku bixiyey amba u qoray check ahaan. waa tan sida ay noqon doonto. waxaa batay rent expense-kii baa batay oo $450 ayaa la bixiyey. waxaa sidoo kale yaraaday cash at bank oo ka mid ah asset. waxaa ka baxay $450. expense-ku wuxuu ka bataa debit side-ka. kaashkuna wuxuu ka yaraadaa credit side-ka. haddii aynu u nimaadno transactionka lixaad lixdii bishii afraad 2009 wuxuu iibiyey qaybtii u harsanayd alaabtiisii u taalay storeka oo
qiyaasteedu qiimaheegu ahaa $6,000 isaga oo ku iibiyey deyn ahaan. joornaalka bal aynugu tagno siday noqonayso. Iminka wuxuu iibiyey alaab laakiin lacag lama siin, customarkii ayuu weli ku leeyahay. waxaa kordhay receivable-kii uu ku lahaa customerska iyadoo asset-iga ay u gelayso $6,000. dhanka kale isaguna waxaa kordhay sales oo income ka mid ah soo galay, isaguna waa $6,000. assetku wuxuu ka kordhaa debit, sidoo kale income-kuna wuxuu ka kordhaa credit. haddii aynu u nimaadno transactionka toddobadii bishii afraad 2009, wuxuu soo iibsaday alaab isagoo kusoo qaatay deyn ahaan. qiimaha alaabtuna uu yahay $7,000 oo lagu leeyahay aanu bixin weli wax lacag ah. aynu joornaal garayno haddaba siday noqonayso. waxaa kordhay purchase expense oo ah $7,000. dhanka kalena waxaa ka kordhay payable oo ah hore aynu soo sheegnay liability-ga ka mid ah. isaguna waa $7,000. expense-ku wuxuu ka kordhaa debit side-ka, liability-guna waxay ka korodhaa credit side-ka. transactionka ugu dambeeya ee 8aad haddaynu nimaadno 8dii bishii afraad 2009, wuxuu soo iibsaday delivery van qiimihiisu yahay $7,000 oo cash bixiyey. balayn joornaal garayno transactionka ugu dambeeyana. waxaa inoo kordhay motor vehicles oo asset-ka inoo ah $7,000. dhanka kale waxay isaguna yaraaday cash at bank oo asset-ka isaguna inoo waa $7,000. isaguna asset-ku wuxuu ka kordhaa debit side-ka. asset-ku wuxuu isaguna ka yaraadaa credit side-ka.